March oo maalinta haweenka caalamka sanad walba loo dabaaldego maalintaasi oo kale ayaa haweenka Mareykanku waxay ka qayb qaataan dabaaldeg loogu magacaabo bisha ama taariikhda haweenka bisha la xuso goordhaweed ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Khadra Maxamed Shire oo farxiyo loo yaqaano oo madax ka ah urur lagu magacaabo xarunta horumarinta haweenka oo ka dhisan magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxaan weydiiyay waxyaabaha ay haweenka Soomaalidu kaga qayb qaataan bishan March oo Mareykanka looga yaqaano bisha taariikhda haweenka horta Mareykanka waxaa lagu yaqaanaa wax la yiraahdo bisha taariikhda haweenka laakiin maalinta khaaska ah ma aanan arkinin wax si gaar ah ugu dabaaldegay taariikhda bishaas loo asteeyay waxa la isu keenaa waxyaalaha haweenku ay qabteen waxyaalaha haweenku ay gaareen waxyaalaha loo baahan yahay haweenku ay gaaraan for example state house-ka ama meesha guriga dawladda gobolka Ohio bishaas oo dhan waxa lagu soo bandhigaa warbixin ama hawl artist ah oo ka hadlaysa taariikhda haweenka ay soo mareen haweenka gobolka Ohio khaasatan ka soo jeeda haday ahaayeen haweenkii qarniyo hore joogay kuwa hadda jooga kuwa mar dhex joogay intaasba waxay haweenku qabteen kaalimaha muhiimka ah oo ay haweenku ay ka galeen bandhiga oo dhan wuxuu soconayaa bisha oo dhan laakiin maalinta 8 Maars oo khaaska ah wax state house-ka si khaas loogu sameyn jiray ma jirin ilaa sanadkii hore anaka aan tagnay oo aan la tagnay aydiyada in 8 Maars maalin ahaan aan halkaas ugu dabaaldegno oo haweenka isku soo baxaan Khadray maxaad suran kartaa haweenka Soomaalida ee gobolka degan way u qabsoomeen oo way kaga qayb galaan bishaasi taariikhda haweenka loogu magac daray ee Amerika dadka jooga oo dhani ay dabcan qaybtooda ka qaadanayaan wallahi haweenka Soomaaliyeed oo gobolkan Ohio ku nool ama Amerika oo dhan ku nool waa dad soo galooti ah oo nolosha sida ay ula qabsan lahaayeen caruurtooda ay uga maareyn lahaayeen nolosha maalmeedka ah oo maalin walba jirta qurbaha waqtigiisa adag luqadda iyo dhaqankaba ay ula qabsan lahaayeen ku mashquulsan markii la fiiriyo laakiin horumar la taaban kara gaaray maxaa yeelay sida ay wadanka ku yimaadeen iyo sida ay maanta ula qabsadeen way kala duwan tahay waxaa la dhihi karaa weli waa horumar inkastoo weli ay waqti dheer sugahayo waatay waxyaabaha aad dumarka kala caawisaan ama aad kala shaqaysaan maxaa kamid ah suran kartaa ururkeenani wala ururkeena wuxuu haweenka ka caawiyaa marka u horeysa waxa ugu weyn oo haweenka ay u baahan yihiin markasta oo howl joogta ama loo yaqaan ongoing waxa weeye wacyigelin waxyaalo badan sida wacyigelin caafimaad wacyigelin waxbarasho wacyigelin siyaasadeed for example waxyaalaha ururkan iyo haween badan oo Soomaaliyeed ay qabteen waxa kamid ah doorashooyinkii hadda la soo dhaafay haweenka Soomaaliyeed ee guryahooda iska fariisan jireen sanooyinkii hore oo cid ay dooranayaan iyo cid ay dooran karaan ayna kala aqoonin laakiin ay talaabo ay haween badan ee Soomaaliyeed oo aniga aan kamid ahay ay qaadeen inay haweenkaas ka wacyigeliyaan muhiimadda siyaasadeed ee ay leedahay ama ayaga ay shaqsiyan wax ugu tari karto ama bulshada guud ahaan inay ka qayb galaan doorashada golayaasha gobolka golayaasha magaalada ilaa iyo doorashada heerka madaxweynaha ah marka waxyaalahaas horta wacyigelinta ah waxa kaloo kamid ah wacyigelinta caafimaadka oo mar walba haweenka lagu booriyo inay caafimaadkooda iyo kuwa caruurtoodaba ay mar walbaba ay u taagnaadaan waxbarashada ayaa kamid ah waxyaalahan ku caawina haweenka inaan tusno sida haweenku ay u gaari lahaayeen horumar waxbarasho waatay waxyaabaha aad hiigsanaysaan sanadaha soo socda dabcan maanta aad qorshaheeda jaangoynaysaan maxaa kamid ah ugu dambeyntii wallahi waxaa kamid ah wixii ilaahay hirgeliyo kasakow inay haweenka Soomaaliyeed ay hadda sida ay ku joogaan bulsho nadiif ah ay ku yihiin wadankan Mareykanka khaasatan magaaladan Columbus Ohio oo aniga aan ku noolahay oo aan nahay tiro aad u badan oo lagu qiyaasay ilaa 50,000 oo qof oo Soomaali ah oo ka kooban qoysas ilmo u badan oo hooyooyin badan ay hogaamiyaal ka yihiin haweenka Soomaaliyeed inay ku tilaabsadeen in ay shaqaystaan inay luqadda wadanka bartaan inay ayaga kaligood isku filnaan in ay horumarka qoyskooda oo dhan ay ka dadaalaan taasi waxay ahayd Farxiya Maxamed Shire ama Khadra Maxamed Shire oo dadka qaarna u yaqaanaan Farxiya
oo kamid ah haweenka u ololeeya xuquuqda haweenka ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo khadka telefoonka goordhaweyto iigu waramaysay. haatana dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan xubintii sarifka